saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa arrintii la tacajubeen way la yaabeen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maalmahan aad iyo aad macnaha fadligooda ugu sheekaynayo ayaga markaas agtooda waxaa ku weynaa jihaad fii sabiilillaahi lagu baxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta dartiisa loo bixiyo ayaa macnaha agtooda ku weyneed markaasay rasuulku weydiin calayhi salaatu wasalaam faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah wala aljihaadu fii sabiilillaah jihaad ilaahay dartiisa loo baxa miyay ka fadli badan yihiin maalmahan rasuulku wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam wala aljihaadu fii sabiilillaah jihaad fii sabiilillahi loo baxa laftirkeeda maalmahan ayaa ka fadli badan اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وسفيه وخليله وخيرته من خلقه وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. إخوة الكرام أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kasta adduunka dacaladiisa ka joogtaan salaanta islaamka mid oo qiimaha badan ayaan idinku salaameynaa bacda salaam insha allahu tacaala waxaan halkan ka soo jeedin doonaa kalimateen oo ku saabsan 10 maalmood ee khayrka badan ee barakada badan ee fadliga badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu manaystay 10 maalmood waa 10 maalmood ugu horeysa ee bisha dhilxijja ama bisha carafa lagu tilmaamo insha allahu tacaala saad la socotaan 10 maalmood waa 10 maalmood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khayr u dhammaystiray waa 10 maalmood oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillahi uu ku tilmaamay afdalu ayaami dunya maalmaha adduunyada maalmaha ugu fadli badan inay yihiin ayuu nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cabdullaahi binu cabbaas uu nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam maa min ayaamin maalmo ma jiraan buu yidhi alcamalu saalixu fiihinna maalmaha dhexdooda camal wanaagsan la sameeya axabu ila allaahi ilaahay looga jecel badan yahay min haadihi alayaami alcashir maalmahan oo 10ka ah maalmo looga jecel badan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jiraan buu yidhi saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa arrintii la tacajubeen way la yaabeen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maalmahan aad iyo aad macnaha fadligooda ugu sheekaynayo ayaga markaas agtooda waxaa ku weynaa jihaad fii sabiilillaahi lagu baxo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta dartiisa loo bixiyo ayaa macnaha agtooda ku weyneed markaasay rasuulku weydiin calayhi salaatu wasalaam faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah wala aljihaadu fii sabiilillaah jihaad ilaahay dartiisa loo baxa miyay ka fadli badan yihiin maalmahan rasuulku wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam wala aljihaadu fii sabiilillaah jihaad fii sabiilillahi loo baxa laftirkeeda maalmahan ayaa ka fadli badan ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishayin buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam cid oo macnaha naftiisa iyo maalkiisa la baxday oo markaa labadaasba waxba aan kala soo laabanin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa uu u shahiiday oo markaa naftiisa macnaha ilaahay dartiisa u bixiyey kaa maahina cid kale ka fadli badan ma jira buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal maalmaha sharaftaas badan maalmahaas khayrka badan maalmaha fadliga badan ayaa inoo bilowdeen maalmaha waa inaan ka faa'iidaysanaa nabigu wuxuu tilmaamay alcamalu saalixu fiihinna camal wanaagsan la sameeye camalkaa wanaagsan wuxuu noqon karaa salaada oo macnaha la wanaajiyo salaadaha faralka ah oo lagu dadaalo waqtigooda lagu dadaalo iyo sidoo kale soon in la soomana aad buu u fadli badan yahay asagana sidoo kale quraanka akhrintiisa in la badiyo aad bay u fadli badan tahay sidoo kale waxaa loo baahan yahay sadaqa in lala baxo maxaa yeelmay maalmahan oo fadliga badan ajarkooda wuxuu noqonayaa ajarkiisa labanlaab ama dhebel ayuu noqonayaa walidaalika sidaa darteeda inaan kaga faa'iidaysano tasbiixda aan badinno taxmiidda aan badinno
takbiirta aan badinno subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah aan badinno salliga nabiga aan badinno calayhi salaatu wasalaam acmaashaas wanaagsan haddii aan samayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu naga abaalmarinaya sidoo kale waxaa loo baahan yahay walaalayaal qaraabada in la xidhiiriyo qaraabada xidhiirinteeda ajar fara badan ayay leedahay oo halka aanan ku soo koobi karin insha allahu tacaala qof waliba waa ka dheragsan yahay arrinka asaga ah maalmahan siduu nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maalmo lagu mithaali kara ma jirto aan kaga faa'iidaysanno camalkan khayrka ah waxaa la yidhahdaa culimmadu waxay yidhahdaan 10 maalmood oo bisha Carafa ugu horeysa iyo 10 maalmood oo bisha Ramadaanka ugu dambaysa markii lis barbar dhiga maalmahan oo Carafa 10 ugu horeysa ayaa fadli badan laakiin habeenaha hadii la yiraahdo habeenada macnaha bisha Ramadaan 10 ugu dambaysa ayaa fadli badan maxaa yeelay waxa ku jirta habeenkii Laylatul Qadarka ahaa marka sidaa darteeda inaan ka faa'iideysano ayaa loo baahan yahay haddii ay noo suuragali weyso maalmahan sagaalka ah soonkooda haddii aan awood u wayno inaan kaga faa'iideysano maalinta yawmu Carafa soomkeeda inaan kaga faa'iideysano maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalinta ayada ah fadli gooni ah dheeraad inay leedahay ayuu nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey nabiga ayaan maalinta Carafa soonkeeda ka waran markii la yiri wuxuu yiri ahtasibu cala allahi an yukaffira as-sanata al-maadiyata والباقية سنة تكتي هي سنة صوص عطو إلهي سبحانه وتعالى إنه دم بجد كله أيان إلهي سبحانه وتعالى كرجينا بويري وهل مال أو معناها الله بس سنة ذنوب تود الله ودافعه محا دعي أو أنا كجفا إيدي سنين ولا ليال الدنيا ده نبوا وردنا معلمها خير كبدن وآخرة ده أكون كنا آخرة ده نور دعي ميانا كفا إيدي سنين إن شاء الله تعالى نفتيني يتيدبا وحيدا كلا دردار ميا إلهي سبحانه وتعالى إنه نوافجي خير كان فرح بدن أن كجفا إيدي سنو إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كنا توبنا الصحاها أن لإيمان توبة أيدا أي الباب كستب النوف ريسا سدو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسكوت المامي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وركوي الله إنبره مينو الله وتوبت كنا توبة وناكسن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث بخاري وحكيري يا أيها الناس ضدوا توبوا إلى الله ولإلهي أتوبت كان فإني أتوب إليه كل يوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام aniga oo nabi maxamed ah maalin kasta wuxuu yiri nabi kaleey salaatu wasalaam 7 jeer in ka badan ayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keenaa marka toobadaas ayada ah ayaana looga baahan yahay dunuubteena way badan tahay cimrigeedana waa gaaban yahay cimrigeena aad buu u gaaban yahay dambigeena aad buu u badan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu na siiyay maalmo khayr badan aan kaga faa'iideysano intaasaan rabay inaan ku soo koobo hada wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.